بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. dhammaantiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxa aan ku soo gudbinayaa qodobo ku saabsan xarigaygii ahaa bishii 15-keedii 2017 waana 8 qodob oo noqonaya qaybta koobaad. waxaana jiri doona insha Allah qaybo kale. kow, waxa lagu xiray amar la'aan maxkamadeed, qalabkaygana waxa lagu baaray fasax la'aan maxkamadeed. labo, qodobada lagu soo eedeeyay ma yahayn kuwa ay khuseeya cadayna lama horkeenin maxkamadda. saddex, nuxurka eedeymahaygu waxay ku saabsanaayeen xamar aadideedii, madaxweyne farmaajo taageeristiisii, iyo dekadda iyo saldhigga berbera ee la kireeyey ka hadalkoodii. afar, xeer ilaalinta iyo boolisku waxay maxkamadda caddaymo ahaan u hor keeneen muuqaalada aan daljirka dahsoon ee magaalada xamar farxadda kula wadaagayay walaalahay doorashada madaxweyne farmaajo kadib, iyo sawirro aan muqdisho ku galay oo aan iyagana facebookayga ku baahiyey. waxaana ka mid ahaa sawirro aan la galay madaxweyne farmaajo iyo kuwo aan la galay dad kale, iyo muuqaal aan hore burco ugu qabtay oo aan ku diidayo in la adeegsado weedha ah dadka afka Soomaaliga ku hadla iyo in loo bedelo dadka Soomaaliyeed ama dadka Soomaalida ah, iyo muuqaal aanan baahin oo telefoonkayga gacanta ku jiray oo ahaa kaftan ku saabsan caagado mooyo saxa ahaa oo lagu qoray farmaajo. isku soo wada duuboo saddexdaa muuqaal ee lagu soo bandhigay maxkamadda horteeda waxaa laga soo saaray telefoonkayga gacanta. shan, wax la xidhiidha Soomaaliya ayaa laygu soo eedeeyey, halka xeerka ciqaabta lay cuskaday uu ahaa kii Soomaaliya. lix, garsoorahay xukumay waxa uu u sheegay warbaahinta in dhegaysiga maxkamaddaydu ahaa 3 maalmood oo min 9 saacadood ah. taasina may dhicin, ee waxa uu ahaa dhegaysigaygu 2 maalmood oo min 2 saacadood ilaa 3 saacadood ah, iyo maalin in ka yar 30 daqiiqo oo lagu dhawaaqay xukunka. 7, uma gudbin kumana odhan garsoorahay xukumay waan ku qanacsanahay xukunka iyo qirasho dembi sida uu u sheegay isagu warbaahinta. xaqna umuu lahayn ogolaanshana umuu haysan afkayga inuu ku hadlo. qareennadayda ayaa wakiilo iga ahaa, wayna caddeeyeen halka aanu ka taagannahay xukunka. qodobka u dambeeya ee 8aad, guddoomiyaha maxkamadda sare xukunkayga kadib waxa uu warbaahinta u sheegay eedeymo ka duwan kuwii ay xeer ilaalintu igu soo eedaysay. sida dalalka jaarka ah ayuu cabdimaalik ku kicinayay dadweynaha. guddoomiyuhu sidoo kale dacwad aanu garsoore ama goobjooge ka ahayn ayuu yidhi coldoon dembi baa ku caddaaday. intaa waxaa u dheer inuu ahaa kii loo soo rafcaansan lahaa ee ahaa inuu dib u eego inaan cadaalad helay iyo in kale. allah mahad leh, waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.